maalin wanaagsan halkan waa kaynan ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn wararka maanta. Turkiga oo sheegay aqoonsiga Somaliland ay siisay Israa'iil oo uu keeni karo musiibo weyn oo ku dhacda maamulkaas. wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga oo shaaca ka qaadanay ka hortageen dalal kale oo isku dayay inay aqoonsadaan maamulka Somaliland. Al-Shabaab oo sheegay weerar ay ku burburiyeen xarun ay leedahay shirkadda Safaricom oo laga leeyahay dalka Kenya. dowladda Soomaaliya walaa xoog ka muujisay duqeyn lagu beegsaday safaaradda Qatar ay ku leedahay dalka Ukraine. dowladda Soomaaliya waxay hoos u dhigtay xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhaxeeya dowladda Imaaraadka Carabta. Africomna waxay war ka soo saartay duqeyn ka dhacday buraha Calmiskaad oo lagu beegsaday xubno ka tirsan kooxda Daesh. dibaddana waxa ugu waaweyn waxa sii xoogeysanaya dibadbaxyada ka socda dalka Iran. markale ismaqal wanaagsan daawadayaal intii daawateen ayaa qodobada ugu waaweyn ee wararka maanta ku soo dhawaada iyagii oo dhameystiran. waa sabti taariikhdu waxay ku beegan tahay 10ka bisha koowaad ee January sanadku waa 2026. hibe eeba ku siiya habeen la iskama qaadee hodan hospital waa heerkii u sarreeyo dalkeena laga hirgeliyay. hodan hospital waa isbitaalka nuuciisu yahay kii ugu horeeyay laga furay dalkeena waana standard caalami ah. hodan hospital waa hoyga kulmiyaha doorka caafimaadka dal iyo dibadba. hodan hospital aynu ku bilownay Turkiga ayaa sheegay aqoonsiga Israa'iil ee siisay Somaliland oo ku keeni karo musiibo weyn oo ku dhacda maamulkaas. dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa shaaca ka qaadanay ka hortageen dalal kale oo doonayeen maamulka Somaliland ay aqoonsadaan. warbixin amurta la xiriirta waa wariyahayaga Xuseen Maxamed Xuseen ayaa eegaya. wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Hakan Fidan oo wareysi xasaasi ah siinaya telefishinka TRT ee laga leeyahay dalka Turkiga ayaa waxa uu shaaciyay aqoonsi kasto Israa'iil siiso Somaliland uu noqonayo nasiib darro weyn oo u gaar ah bulshada muslimiinta iyo hay'adaha siyaasadeed ee ku aftirsada Islaamka. waxa uu sheegay in haddii Somaliland ay hesho aqoonsi kaliya oo Israa'iil ah taasi micnaheedu uu noqonayo in loona adeegsanayo dana xun iyo siyaasado goboleed oo ka baxsan danaha dadka deegaanka. Hakan Fidan wuxuu carabka ku adkeeyay in arinta Somaliland ay muddo dheer ahayd dhibaato ka dhex taagan nidaamka federaalka Soomaaliya balse Turkiga oo mar walba ku dadaalay sida arintan lagu xalin lahaa gudaha Soomaaliya iyadoo la ilaalinayo midnimada dhulka iyo madaxbannaanida qaranka. waxa uu sheegay in inta uu xilka loo wareegay loo soo bandhigay qorshe diblomaasiyadeed oo Turkiga ku leeyahay Somaliland kaasoo ay ku jiraan wakiilo gaar ah u xilsaaran dhexdhexaadinta iyo horumarinta wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya. wasiir Fidan waxa uu tilmaamay inay jireen dalal gobolka ka tirsan oo danaha kala qaybsanaanta Soomaaliya ka dhigtay siyaasado istiraatiiji ah gaar ahaan xilliyada uu socday fududeynta heshiiska Itoobiya ee Soomaaliya taasi oo keentay in Turkiga u arko in arrintan ay u baahan tahay tallaabo degdeg ah. waxa uu sheegay in mashruuca Somaliland ee dalal qaarkood dib u soo nooleyn uu ku xirnaa qorshayaal cusub oo Israa'iil ay qaaday kadib markii ay dareentay go'doon gobolka kaga yimid inta uu socday xusuuqa Gaza taasi oo soo dejisay isku dayga ay ku raadinaysa saameyn istiraatiiji ah oo cusub. Hakan Fidan waxa uu sidoo kale sharaxay muhiimadda juqraafiyeed ee Somaliland isagoo xusay in gacan ku haynta koonfurta badda cas iyo marinka Bab el-Mandab ay ka dhigayso meel istiraatiiji ah oo dalal badan indhaha ku hayaan. waxa uu intaas ku daray in Turkiga dalalka muslimiinta iyo saaxiibada gobolka ay qaadeen tillaabooyin isdaba joog ah oo diblomaasiyadeed si loo xakameeyo arrimaha noocan ah loona hubiyo in aanay dalal kale sameyn aqoonsi degdeg ah. sidoo sheegay dalalkaasi wuxuu keenay inaysan dhicin aqoonsiga la filayay. wuxuu rajo ka muujiyay in mustaqbalka la arki karin dal aqoonsada Somaliland iyadoo xaaladda sidan tahay. dhanka kale Al-Shabaab ayaa waxay sheegteen inay burburiyeen xarun ay leedahay shirkadda Safaricom oo laga leeyahay dalka Kenya. warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar culus oo xubno ka tirsan maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ay ku qaadeen xarun shirkadda Safaricom ee ku leedahay deegaanka lagu magacaabo Mangai oo ka tirsan magaalada Lamu ee gobolka Waqooyi Bari Kenya. weerarka ayaa waxa Al-Shabaab ay u adeegsadeen qarax culus kaas oo lagu burburiyay xarunta shirkadda Safaricom ee deegaanka Mangai.
war ka soo baxay maleeshiyada al-shabaab oo looga hadlay weerarkan qaraxa loo adeegsaday ayaa waxay sheegeen inay burburiyeen isla markaana dhulka ay dhigeen dhismihii xarunta shirkadda Safaricom oo laga leeyahay dalka Kenya isla markaana ay sheegeen in khasaare lixaad leh ay gaarsiiyeen al-shabaab ayaa sidoo kale sheegtay in weerarka qaraxa ah ay sidoo kale ay khasaare ay ku gaarsiiyeen qaar ka tirsan shaqaalaha shirkadda oo ka howlgalayay dhismaha weerarka culus lagu qaaday laakiin ma jiro war rasmi ah ama tiro rasmi ah oo sheegeen waxyeelay ka soo gaartay dhinaca kale ilaa hadda dawladda Kenya wax war ah kama soo saarin weerarka qaraxa loo adeegsaday ee lagu qaaday xarunta shirkadda Safaricom ay ku leedahay deegaanka Mangai ee gobolka waqooyi bari Kenya gaar ahaan magaalada Lamu si kastaba weerarkan ayaa imaanaya iyadoo al-shabaab tiro dhowr jeer sidaan oo kale ay weeraro qaraxyo ah ay ku burburiyeen xarumo ay shirkadda Safaricom ay ku leedahay deegaanada aadka ugu dhow ama dhaca xadka wadaagaan dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Dadka kale tan dawladda Soomaaliya ayaa walaa xooggan waxay ku muujisay duqeyn lagu beegsaday safaaradda Qatar ay ku leedahay dalka Ukraine sida faa'iido warkan uu ku eegayo wariyaha Daahir Abshir Xasan. Dawladda Federaalka Soomaaliya ayaa waxay war ka soo saartay duqeymo lagu beegsaday safaaradda Qatar ee ay ku leedahay magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine. war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dawladda Soomaaliya ay si weyn kaga walaacsan tahay isla markaana ay ka xun tahay duqeyntaasi lagu beegsaday safaaradda Qatar ee dalka Ukraine iyadoo dawladda Federaalka Soomaaliya ay ku baaqday in la ilaaliyo shuruucda caalamiga ee lagu ilaaliyo xarumaha diblomaasiyadeed iyo kuwa howlwadanada caalamiga Ruushka ayaa saacadii la soo dhaafay wuxuu duqeymo ba'an ka geystay magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine halkaas oo sheegay inuu ku baabiyay saldhigyo ay ku lahaayeen ciidamada militariga dalka Ukraine iyo sidoo kale dhismooyin waaweyn oo ku yaala magaaladaasi. Dawladda Soomaaliya iyo dawladda Qatar ayaa iminka waxay leeyihiin xiriir aad u wanaagsan oo diblomaasiyadeed waxaana labada dawladood iska kaashadaan arrimo fara badan oo ku saabsan diblomaasiyadda iyo sidoo kale dhaqaalaha. ugu dambeyntiina haddii ayago waxaa sii xoogeysanaya dibadbaxyada rabshadaha wata ee ka socda magaalooyinka waaweyn ee dhaca waddanka Iran toddobaadkii labaad ayay galeen dibadbaxyada rabshadaha wata ee ka socda dalka Iran warbaahinta maxalliga ah ayaana waxay sheegteen khasaaraha ka dhashay banaabaxyada marka ka dambeysay si kordhayaan dadka mudaharaadaya ayaa diidan ama cabasho ka dhaqaal xumo baasan oo ka jirta dalkaas.